kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba dadweynaha aad ka joogtaan waxaan idinku hambalyaanaynaa curashada bishii barakeysneed ee Ramadaan. Allah hayna siiyo khayrkeeda hana inaga yeelo kuwii ka faa'iideysta. waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bikhair. haatana ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo kala socotaan wararka ugu dambeeyay ee dadka caanka ah ee Soomaalida iyo kuwa adduunka. fanaanada caanka ah ee Nimco Yaasiin Caraale oo waqti xaadirkan Hargeysa ku sugan ayaa sheegtay in diyaar kama dambeyntii ay u tahay in hadda loo kala qaado DNA iyada iyo walaasheed adeega Yaasiin Caraale si ay u kala baxaan una cadeyso in ilmo Yaasiin Caraale soo korsadeen balse aanay ahayn reerkii dhalay ee ay ka luntay. waa sida ay hadalka u dhigtay fanaanadu waxaanay tiri halkan waa aniga imi June iyo July ugu soo joog waxaanu imi inaan adeega DNA kala qaadano DNA baanu imi anoo joogay adeega hadashay Hargeysa jooga oo jiri DNA-diba ka dhuumanaysa lama hayo 4 bilood uma soonto caynka lulu aan Hargeysa jooga ugu iyadu wax isleed waxay joogtaa London 7diiba hadashay ana 8 baan hadlay maanta ka xigtay bidri bay wareystay waanigi adeega la adeegay waan ku imi walaal macaani London waan kula jooga DNA-di baan aanu imi maalinta June iyo July iyo August baan joogay irgaan dirtay boqor Axmed baa kamid ahaa waxa kamid ahaa sultaankii adeega kamid ahaa adeero Ibrahim waan dirtay waxaan ku dhexnoo noqda DNA-di noo kala qaada ana waaniga imi sheekadana saal ugu soo afjaro adigu waxa sheekadii waan arkay inaan xagoodii ka soconin adeegi passport ma haysata iyo win la garoobo la geeyay iyo adeer iska tag soo noqodka laga dhigto baba adigu si leeyma welinayay waxaan arkay inay waqtigii horta June iyo July ba iga socdeen adeegina sheekhiska joogtoonay marnaba Hargeysa igu iman bas markii dib waxa lagu yiri adeeg kuma soo socoto danaha iska qabso dad baxayso adeeg ku jirta laakiin hadii aad baxdo way soo fadhiisan xorun doonta gabadhii hadina baan qaadayaa meeday sawta leeyilana beedan u baxsato Hargeysana way dhuumatay teedna anigu waliga station ma arag iska daa maxkamada gabadhan uu imaadeerno Faadma dheer leeyahay kuna wal maxkamadda Madiif igeysido way ikaxaysay maxkamadii bay igeysay wala sukay taagay waxaan ku laarintaas rabaa aniga walaashii adeegayna la kala saaro noo qaado dhacanka DNA-da arshi soo qoray lagu yiri arshigii baan soo qortay maanta kale soo celiyay waxa laga gudoomay lawyer baan qabsaday waxa lagu hadana maanta caynkaas soo noqo waan soo noqday waxa la adeega samakaas loo dirayaa maanta halkee lagu hagaajinaya waxaan siiyay sultaankii Ibrahim adeero nabirkiis waa la wacay in yar baa loo dhiibay waa loo geeyay date kaas ay imanaysa halka kale wala isku keenay maxkamadii ani adeega face to face ilaahay bay iga sareen gurigeyga nabad tagin intuu xaakinkii kacay ma intuu kacay sultaankii Ibrahim ayuu adeeg weyn dhigalaad waxba ma maqasho markaas ku ma loo yar baad u tamsiir maya hasiir fadhiiso ma hadli kartid adigu ala kulli xaal xagooda kama soconin sheekadu waxay ku soo gabagabeeyeen in dib loogu dhigo dib hadana loo dhigay ana waan baxay muddadii la ii qabtayna waan ku imi hadda bil baan joogaa bishaasoo dhan waxaan taaganahay maxkamad arti sanadkii hore way bugtaa gaariga ma soo qabanaysaa la yiri haddana kii kale bil loogu dara week baa loogu daray hadda kii u dambeeyay oo tan warqadeedii adeega waxay tiri waan xanuunsanayaa mana kici karo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa walaalayaal corona jira la isma bixi karo ana qof weyn baan ahay inaan noolaanayn kale Ilaahay baa og 7 bilood dib hala iigu dhigo anigu mid degani Hargeysa waxaan deganay Ingiriiska waxaan ku codsanayaa walaashay adeega si sharaf leh adeega wax badan baad media ka qaylisay walaalo kaalay birta soo bax maxkamadii go'aankii bay gaaraysaa markii xaqiina war laga waayay maxkamadii soo dhaqaaq weeyay adeegay go'aan bay maxkamadii gaaraysaa aniga lawyer labaad baan qabsaday waxaan ku ilo adeega halay keeno maba dhici karto inaan halka ka dhaqaaqo adeego halka la keen mooyaan waxa la yiraahdaa adeega xukumo lihin maxkamaddu maaha qof maadar galay oo dambi galay oo la soo xilxiriyo soo katiinaysan la keenayo waa madani way diidi kartaa way yeeli kartaa hadii diido haddaan lahayn maxkamadda aniga xukunka ridayna marka hadda xukunka bay maxkamaddu taala waxaan ka codsanayaa adeega iyo reerka aniga ay soo korsaday sharaftayga mudan inta soo leekaysiiyay inaad iga aqbashaan inaad bari adeega ii keentaan saadama maxkamadda la geeyo intaan xukunku dhicin soonka koor buu dhacayaa intaan xukunkaasi idinku dhicin in
aynu dhacaankii kala qaadano ayaan idinka codsanayaa xumaantuna ma fiicna anu marna waxba kuma degdegayo adeega waxaan u ballan qaadayaa haddii waxaan u caddaynayaa adeega horta qof anigu nolosheeda maan arkin caana oo magac leh oo 20 sano hooyo aan dhalin iyo reer aan dhalin iska haysto iska korsanaya markaas adeegyadina tiraado qayladaan waa wareey marka waa 2000kii waxay hadashay 19kii intaasoo dhan bay hadleed adeegi hadalka ku horeysay oo tiri nimco anaga walaalo may wala may anigu sheekada waan ka soo sheekay mar 12kii waan hadlay hadda waan ka hadlay maxay haydeen waxaan ka hadlay VO-da anigu anoo 3 jir laga qaad waxa la geeyay Djibouti sanad batun caraaliyeeda la siiyay oo daa waxay korsatay inakeeda intuu qabay guriga ku wada noolaayeen iyo islaantuba halkan joogtay marka sheekh madar bedigantay islaantii aniga korsatay batun caraaliyeena ilaa naxariisto way dhimatay Djibouti baan ku soo koray shajir anoo ahba reerkayga ka lumay walaalkayga helay shanjir anigoo iyo idigi duubriil oran jiray ilaa uu naxariisadeynimadiisba waaweyn hadii mar walba yimaada ilaa iyo 8 jirkaygii 9kii markaan ku socday sidaas bay reerkaasi daba socdeen anigu markaan riwaayada qaaday Shamaali Djibouti baan aniga walaalahayga la soo hadleen markaan saa Ingiriiska u galay way la soo hadleen dibbigiisa xiriirinaya reerkani waxaan kula markaan sharciga saa u qaato Ingiriiska way dul taaganahay dhayna baan ka qaadanayna okay gabadha ay dhibaatay intaas calaamado baan kugu ognahay hadaad leedahay noo soo sheeg intii calaamado baan u sheegay waan isulimi reerkaygu waan isbaranay adeega waan u tagay sheekh waan tagay waxaan ku riyay garanayno 3 jira 4 jira 5 jira 6 baan u gaaray no way ilaa haddana waan taaganahay lama helayo oo masaajidka galay ku dhaaranaya ana weyn oo 9 sano jira waxba iiga dhinay baan iga sheekhlay keenay marka adeegay waad ogtahay aniga adeegana way sugnahay walaalay macaani waxaan doonayaa inay waxa la beefkatay runimo gaadho laakiin hadda runtii bay taagantahay waa the real adduunkan waxay haystaa ma jiro horaa loo maray ilmaha dhashaan laga qaadi karin ku dhiigaaga baan lagu oran karin ma dhiigaaga dhacaan baa la kala qaadayo waa very easy wandhay bay nagu dhamaan dhacankeen hadii doono la diraya ma aqaan wiig baa nagu soo jawaabi ma aqaan anigu hadii la naga qaado waa dhaqaaqayba ifan jawaabta sugi maayo walaalay macaani waxaad ku codsanayaa aniga adeegeen la sukaay keeno waa mar labaadkii aan DNA-da soo noqdo qoraal la soo qoro iyo kuman la isku soocay waxaas waa very simple wadad aqli gaaba waxa looma baahna waxa loo baahayay reality adeega DNA kala qaadano DNA hadii adeegun baa ka nool adeega ka nool iyo caruurteedii marka adeegay waxaan ka codsanayaa inaad media inta istaagtay waa wareey aad tiri 20 sano kadib maanta reerkayga helan ku yeedhan kurina reerkiina u yeedh oo kaali reerkan la xaale oo kaali DNA ba jira kala qaadane wadiga halka iga mareeyimi waaye inta soo sano kulba intaan ergeysay maado hooyaday aqal baaqalka ugu qurux badan u karay ugu raaxaynayay hadda mudiir basi motantaa 2 sano oo sidii boqortooyadu asad inta weed markaas aad qaylin lahayd ma bayd aniga hadheenba runtii bay taagantay kaalay DNA aan kala qaadanay oo idinka codsanaya waliba maxay hayd ilaa boqor Axmed ka codsanaya gabooyo oo ka codsanaya saad igu wada kacdeen igu kaca adeega ii keena iiga qaada dhacaanka wana di salaamaya Ramadaan Kariim baan leeyahay ilaahay balayday naga xijaabaan leeyahay in aadna waan di salaamaya gaar ahaan waliba reerkay soo kursaday ee anaasta reerkay biraha madaxadii saarantiin sharaf bay iga mudantiin markasto waan idin ogi koritaanki laakiin waan ka codsanaya Soomaaliinta adeega raacday iyo gabooyo dhan ilaa boqor Axmed baan la hadlayaa waa in sida aniga igu kacdeen adeega ugu kacdeen ana igu kacdaan maanta noo kala saartaan intaan maxkamadan dhicin aadna waan idin salaamaya thank you very much ayaama gudaheedba waxa u soo jawaabtay Nimco Yaasiin walaasheed adeega Yaasiin Caraale oo ku sugan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil waxay tiri raxiim halkan waxaan hadlaysaa adeega Yaasiin Caraale Axmed waxaan u sheegayaa dadweynaha adduunka daafihiisa iyo dacaladiisa jooga albaab kastoo reer Sheekha waan garaacay bay tiri intaasoo reer Sheekha ayaa maanta galabta halka taagan albaab ay garaacday maxkamadda Hargeysa ka tiri albaab ay garaacday oo reer Sheekha oo ku yiri Nimco lagu ma dhalin been bay ku sheegtay maxkamadda ay leedahay adeegi ma yiman
هلا يسوق قبطو ده وحنا ما ندير وحنا ما نحدين ندور بنقاته إلى أقدر بين مركه هرب دعني قايل ولا شيء أنا لقى قادر ديجي هيدا السلاح إمي كان عن كل كيبان تاجنا هاي ديجي هيدا السلاح ديار بان وهاي لا هذا ما قرتي أنا قف الله الرحمن كاكو حدن بان هاي يا الله الرحمن كحقنا وان كنت تاجنا هاي حقي والد كيبان الهادين يا قاري نقطنا حق بان كنت تاجني نمعه أنا وان وقول إسلام أدون كدافي سيد على دي سوحي ومتشوكتي أنا يراعدي حق يجوشنا أنا يسوع ينسى حدي الله كديجو سيد نمعها قصة مرتب هل كان واحد ما أنت أنا قوتنا قوم شوقي على شدي نمع ياسين عرالي قافة محمد سمكاب أو أركيسان دعدي يوتشي جيدا يكفر دا أيا وجوه الرئيسة ومشي أي كوبوقتي عشان ياسين أنا أبي رئيس بيو أياد مري مادي وعيدان وحا ومشي على شدي رياض مطر وحلو قصر بالواي بيه باني لو كحاية مركي أنو قضايا كي كرتنا أنو أتقنا وحي النصيري يا عشان يسكوران وحي النصيري أو ينمع إلهي ما كنت رأيه نمع عندنا وانفول بدين تراه نمع دولة الصومال لأنه محلنا maxkamadaasi inantaa dhiyanayga waa u diyaar maalinta shabcaan maanta waa 30 maalinta bisha ramadaan dhamaatay 6 shawaalka laga soo noqdo mawduucu uu daayo adeega yaasiin anagoo galbinayna ayaanu maxkamadda keenaynaa nim horta diyaar garowdo waa ta koobaad sheekh way ka go'an tahay taasi waa ta labaad nimca yaasiin waxaanu sheegaynaa waxay tiri waa loo yeeray haddaad badad iyo lacag isticmaalayso ilaahay wadsigiisa ayaa adeeg isticmaalaysa annagana garab taagan mana la waayayo xaqa ilaahay dulmiga ma qaado xaquna wax qarsooma ma aha nimcoy haddaan yaasiin caraala ku dhalina halkaasaad ka bixiyo waa laga waayay dawladana waxaanu leenahay labada ruux ee kala laalaada hal la kala furto oo dawladdu cadaaladda ha geyso haw kala qaada dhiiga deedna nimco qolada sheegaysa ha noqoto markaasaanu isulaan haddaba daawaday si aad nagu xidhnaato fadlan taabo subscribe iyo gambaleelka si aanay ku dhaafin muuqaaladan idiin soo wadno sidoo kale ku xidhnow bogagan ku leenahay baraha bulshada ee Instagramka, Facebookka iyo Snapchatka.